walaal horta waad mahadsantahay waxaan ka leeyahay muuqaalka ninkaa sharci darrada ku xidhan ayaa si sharci darra ah telefishinka ay dowladdu leedahay ay ninkaa waxay doonaan ka yidhaahdeen ay jarjareen amba hadallada ay soo duldhigeen weligeed nin jeel ku jira oo inta ay u tagto maaragtay journalist ay wareystaan lama arag in dunida human rightsku tagaan ay wax ka qoraan ayaa jirta qoraal in la sameeyo leedaha saasaan aragnay jeelku sidaas u yahay wallahi dadka dhibaatada haysata waa taa oo general ah waxaan qof u gaar ahayn meeshan dowlad baa iska xukumata iyo kaasay doonaan wax ka yeela iyo kaas sharciga dariiqii doonaan mariya waxaasoo dhan waa wax sharci darra ah oo looyarkiisa ayna u sheegi kuwan xaquuqal insaanka dowladda u shaqeeya sheeganaya iyo kuwa la socday iyo ertadeega Djibouti sharci darray sameeyeen wuxuuna odhan bay sheegeen waxay doonaan bay sameeyeen ayna u sheegin walaa xaaskiisii walaa looyar dhakhtarada ay sheegayaan ayna wali u tagin oo ka sugayna xukuumaddu inay dhakhtarninka geyso maantana aad arkaysan jirkiisa dhibaatada ka muuqata marka ay dowladda Djibouti intay ertadeegan iyo kun dowladaloomka sheeganaya u geynayaan ninkan ha iska sii daayaan maxay tahay marka sharci darradan ay sameeyeen ee aad sheegaysid waxay tahay marka jeelka la soo eegayo maxay ku dhacday fu'aado qura inay focuska duldhigaan amba isaga ay gaar u wareystaan ay weydiiyaan wax waliba maxkamadda yaalloon laga hadli karin dhakhtar ma lagu keenay haa laba ii timi waxa weeyaan waxaasi wax sharci darra ah oo faylka maxkamadda yaalla iyo meel kaga dhaca adiga ma lagugu soo wargeliyey in fu'aad loo tagayo ee lasoo wareysanayo maya waxyaabaha cajiibkaa weeyaan ay ku tusayso dowladdu anigu waxaan doonaan samaynaya markaan doonaan u tegaya takala xaquuqal insaanka kuwan sheeganaya dowladda u shaqeeya ay mushaarada ka qaatay dowladda markay tegayeen inay ila hadlaan bay hadday tagaanna ertadeega inay kaxaystaan ma inay tagaan isaga wareystaan qoraal sameeyaan ay kolkaa kaga hadli karaan meesha laakiin maanta waxaa la sameeyey waa ertadeega dowladda leh kani tagay dowladdu u shaqeeya ninkiina wuxuuna odhan baa laga siiyey laakiin guddigan xuquuqul insaanka intaan ognahay waa guddi madax bannaan oo dowladda aan u shaqayn marka adiga eedan ah in guddiga ay dowladda u shaqeeyaan maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynayaa dadkan waa dad dowladda u wada shaqeeya ninkan iminka meesha madaxda kii wasiir buu dowladdan u ahaa wuxuu ahaa technical advisorka prime ministerka Djibouti waa dad dowladdu mushaara siiso ayaa halkaa la geeyaa laakiin dad civil society-ga ka mid a shicibka ka mid a kuma jiro marka waxa weeyaan dowladda ayaa gacanta ku haysa Djibouti meel madax bannaan ma jirto laakiin in qofka uu wasiir ahaan jiray taa kama hor istaagaysa in dadkiisii u shaqeeya haddana way ka hortaagaysaa waxa weeyaan waddankan dadka dowladda la socdo unbaa meel walba loo dhiibaa waa wax jira oona cidna ayna ka murmi karayn marka ninkaas madax bannaanku haystaa waatee ma jirto ma waxaad leedahay marka guddigan xuquuqul insaanka Djibouti ma ahan guddi madax bannaan oo sida ay tahay u shaqaysan kara ma madax bannaana guddiga maanta dad badan oo reer Djibouti ayaa 10 cisho 20 cisho la xidhaa aniga oo loo yaraan u tegi karin dhakhtar u tegi karin mid cali sabiix imka 5 cisho xidhnaa xalaal iska sii daayay maxkamad lama geyn wixii lagu qabtay lama garanayo telefoonkiisii iyo wax lagala haday laptopkiisii imka inama kale oo suxufiyiina xidhan Djibouti oo la qabtay khamiistii marka aan la ii ogoleen inaan u tago marka waxa weeyaan madax bannaanida kuwaasi hadda sheeganaya human rights may ka hadlaan dhibaatooyinka dadkan inta la qabto 20 cisho inta la hayo marka doona la sii deyn karin maxkamadaba la tamay ka hadlaan kama hadli karayaan sababtana sababta dowladda u shaqeeyaan fu'aad markii hore markuu hadlayay wuxuu sheegay in xaaladiisa aysan wanaagsanayn oo dhibaato badan ay soo gaartay laftiga marna la hadashay waxaad sheegtay in jirkiisa laga arki karay dhibaato soo gaartay haatan wuxuu leeyahay wax dhibaata oo la ii geystay ma jirto marka soo labada arrin ma kala duwana aad buu kala duwan walaal waxa weeyaan idinku bada halkaas waxa tiin rag suxufiyiin oo dunida maray saasaad u kala garan kartid ninkii markii uu hadlay hore uu dhibaatooyinka lagu hayo inuu musqul ku jiro inuu jiirka la nool yahay in nolol loo ogoleyn iyo ninka maanta lagu yidhi dhakhtarraa ku yidhi soo ma fiicni nabradan maxay kuu gaadheen waa laba waxoon aan islahayn marka waxa weeyaan ninkaasi marka hadalkiisii hore ayaa sax ahaa waxaan kaloo dhan waa wax la sameeyey nin wax yidhi ma adiga maxaa ku qorshaysan mar hadduu xaal sidan yahay waxaan u tegayaa xeerraaliyaha sare ee ummadda Djibouti oon u sheegayo arrinta sida u dhacday oon idin warrami doono wuxuu igu soo yiraahdo ninka maxbuuska ah ee dhibaatadii aqalkiisa iyo dumarkiisa carruurtiisa leeyahay